السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiiba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyada aan idinkugu tala galnay maanta oo axada taariikhduna ay tahay 17 Maarso sanadka 2024. haddaba barnaamijkan waa midkii habeennimo waa barnaamijka aynu ku falanqayno wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay saacadihii la soo dhaafay. haddaba barnaamijka waxaan idinkugu haynaa qodobo muhiim ah. ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo toos uga hor yimid habka ay Mareykanku ku doonayaan in doorasho waqtigeedii laga soo hormariyay laga hirgeliyo Israa'iil kadib markii isfaham uu soo kala dhex galay maamulka Biden iyo Netanyahu iyo xukuumaddiisa. haddaba sheeko ku saabsan arrintaas waan idin hayaa iyo wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray. waxaa soo kale aan barnaamijka idinkugu hayaa arrin aad u qosol badan oo warbaahinta dhan ay ku maadsanayaan. dhowaan markii uu booqashada ku tagay waddanka Ruushka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un waa jaagaxeerka markii uu tagay wuxuu la kulmay Putin ninkaas arrin ayuu kala hadlay kadibna hadiyad cajiiba ayuu ku wareejiyay. hadiyadii ilaa markaas oo dhowr bilood laga joogo ma uusan isticmaalin. jimcihii la soo dhaafay ayuu jaagaxeerka hadiyadii la soo baxay. gabar isaga la dhalatay oo xisbiga waddanka xukuma ku xigtana way ka hadashay sababta uu hadiyada u soo baxsaday oo uu waliba u isticmaalayo. haddaba hadiyad noocee waay sidee waxu jiraan maxaa keenay in warbaahintu ay aad uga hadasho cilaaqada sii xoogaysanaysa ama xiriirka jaagaxeerka iyo Putin. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa kuugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaalada caalamiga ah ee Ria Money Transfer. ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer. wixii faahfaahin boqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank. kulanti wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii habeennimo oo aan idinkugu soo gudbin doono macluumaadka wararkii ugu waaweynaa. haddaba barnaamijkeenna waa barnaamijkii saddexaad ee maanta samayno. kii ugu horreeyay waxaynu samaynay aroortii saakay, kii ku xigayna saacada ka hor, kanna waa midkii saddexaad. haddaba maanta waxaynu kaga hadlaynaa barnaamijkeenna oo aanu ku bilaabaynaa qodob muhiim ah. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ayaa war uu kaga jawaabayo Mareykanka oo doonaya in doorasho waqtigeedii laga soo hormariyay laga hirgeliyo Israa'iil arrintaa ku diidan. haddaba Mareykanku marka maxay u arkaan Netanyahu iyo xukuumaddiisa waxay u arkaan xukuumad mayal adag oo madax adag. waxaa ku jira niman wadaada diimeed yahuuda sheeganaya. waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda, waxaa ka mid ah wasiirka amniga gudaha. kuwaasoo dhan marka sheer ay ku yihiin. wasiiro caadiya ma ahane xukuumadday wax ku leeyihiin, waxbay ka dhisteen. haddii shaqada laga cayriyo xukuumaddu way buraysaa, way baaba'aysaa. Netanyahuna waa nin xukunka jecel, waa 74 jir. dhowr mar oo ayuu soo noqday ra'iisul wasaare Israa'iil. ninkan marka waa nin taariikh weyn ku leh gudaha Israa'iil. marka Netanyahu
waxaa marka hadda la leeyahay xilka iskaga tag. mudaaharaadyaha gudaha ka socda, shalay maanta meel walbaa la isugu soo baxay, saasaa loogu qeylinaa. marka maraykankii gudihiisii ayaa marka guux ka bilowday. xisbiyadii dimuqraadiyagii talada hayay, madaxdoodii baarlamaanka ku jirtay kulli way qeylinayaan. waxay leeyihiin ninkan Netanyahu oon meesha ka wareegin nabadna ma dhacayso, maxaabiisna lama soo deynayo, dagaalkan uu ku ordaayana waxba kama qaadayo xamaas. haddaba marka Netanyahu marka toosuu uga jawaabay arrimahaas maalmahan dhan maraykanka ka soo baxay. haddaba ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay inuu ka soo horjeedo baaqyada maraykanka ka imaanaya ee ah in la sameeyo doorashooyin oo macnaha loo gogol xaarayo inay burburto dowladda hadda jirta oo doorashooyin waqtigoodii laga soo hormariyay la sameeyo. haddaba warbixinta marka laga qoray sheekadan way sii socotay. waxay leedahay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta oo axada wuxuu sheegay in maraykanka baaqyada ka imaanaya ee la doonayo doorasho waqtigeedii aan la gaarin in laga sameeyo Israa'iil inay taasi noqonayso mid dhibaato ku ah habka ay u doonayaan Israa'iil in ay markaa ku weeraraan oo ay cagta ku mariyaan xaafadda la yiraahdo Rafah. haddaba arrintan marka waxay muujinaysaa in khilaafka u dhaxeeya xukuumadda Netanyahu iyo maamulka Biden uu aad u sii xoogaysanayay muddadii ugu dambeysay. haddaba waraysi ayaa Netanyahu waxaa la yeelatay shabakadda la yiraahdo CNN ee waddanka Maraykanka laga leeyahay. haddaba telefishinka CNN wuxuu u sheegay Netanyahu in arrintani uu si daran u cambaaraynayo waxa Maraykanka ay doonayaan. wuxuu sheegay waddan dadkiisu ay dimuqraadiyad ku dhaqmaan oo dowlad ay soo doorteen in markaa ay sidan loo galo suuragal ma ah. wuxuu sidoo kale cambaarayn uu kala dul dhacay hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee golaha odayaasha ninka la yiraahdo Chuck Schumer oo khamiistii lasoo dhaafay isagu aad u cambaareeyay Netanyahu, waxaana uu sheegay inuu yahay nin aan ogoleen nabad, sidaa daraaddeedna loo baahan yahay in meesha laga wareejiyo si loo sameeyo xukuumad gale. haddaba Netanyahu waxa uu aad uga carooday hadalka ninkaas madaxda u ah kudladda xisbiga dimuqraadiga ee aqalka odayaasha Maraykanka. haddaba waxaa sidoo kale la soo wariyay madaxweynaha Maraykanka Biden qudhiisa inuu la dhacsanaa ninkaasi xildhibaanka ah oo maaragtay gudoomiyaha u ah xisbiga dimuqraadiga kooxdooda aqalka odayaasha hadalkii uu jeediyay, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay mid run ah, taasoo loo macneeyay Biden iyo kooxdiisuna inay fakarkaasi qabaan. waa tahay marka Netanyahu arrintaa aad u diiday. dhanka kale John Kirby oo ah xiriiryaha dhinaca isgaarsiinta Maraykanka ayaa aqalka cad wuxuu sheegay John Kirby in loo baahan yahay in Israa'iil ay la timaado ajenda cad oo muujinaya qaabka ay shacabka uga badbaadinayso Rafah, xamaasna ay ugala dagaalayso. ilaa hadda qorshe cad ma ka haydho dhahay. sidaa daraaddeed Maraykanku ma ka aqbalayo inay weerar isaga qaadaan Rafah. waan ogolnahay in xamaas lala diriro la baabi'iyo, laakiin halkaas waxaa ku sugan dad badan oo rayda, sidaa daraaddeed marnaba ma aqbalayno ayuu dhahay ninkaasi la yiraahdo John Kirby. haddaba waa tahay halkaas markaa intaa kaga gudbaynaa sheekada ugu xiisaha badan ee barnaamijka ayaan u gudbaynaa. dhowaan ayaa waxaa booqasho ku tagay waddanka Ruushka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ninka la yiraahdo. aniga waxaan u bixiyay jaagaxiirka. jaagaxiirkii wuxuu tagay Ruushka, wuxuu ku safray tareenkiisa aan xabadaha karin ee madaafiicda karin ayuu ku aaday. Putin aa soo dhaweeyey. markii ninkan la soo dhaweeyey marka tareenka waxaa u saaran gaarigaas marka ninkan waxa uu markuu dego waa loo soo dejiyaa, wuu ku socdaa magaalada uu tagayo. haddana waa baarkina loo geliyaa oo tareenka dushiisa ayaa loogu baarkimaa. ninkii marka baabuurkiisii ayuu soo degay marka uu saarnaa. marka sida sawirada aad ka arkaysaan gaarigiisa marka
waxaa la yidhaahdaa uu watay markaas Mercedes nooca la yidhaahdo Maybach la yidhaahdaa Mercedes Maybach nooc la yidhaahdo oo Mercedeska nooca ugu qatarsan ah ayuu watay marka Mercedeska waa gaari Jarmalka uu sameeyo waaye reer galbeedka sameeyay ninkan marka waa ku raaxaysanaa gaariga si fiican loo sameeyay xabadu ma karto wax kara male haddii dab ka kaco wuu isdaminayaa waxyaabo badan uu leeyahay waa loo soo sameeyay ninkan markuu gaarigii marka ka soo degay oo uu Putin qaabilayay ayaa Putin wuxuu ku yiri gaariga aawadato reer galbeedka la diriirsanahay inay sameeyeen soo moogin ninkii uu yiri wax kasta in lagu soo gelin karo soo moogin haddaadan ku dhiman intii hadda aad wadatay hadda kadib ha isku raacin u dhahay cunugii waa shakiyay marka jeega xeerkii waxaa la yiri waa baaro yiri gaariga khubaraa u diray meel kasta laga fiiriyay gaariga caadi ma wuxuu dhahay weligaa ha aaminin reer galbeed haye gaari ruushku sameeyay oo aniga aan isticmaalo ka awood badan ka adkaysi badan ka difaac badan mid ka asaaran tahay ayaan hadiyad kugu siinaaliyay marka Putin marka wuxuu u diyaariyay gaarigiisa la yiraahdo Urus Zenat waa gaari ruushku uu ku farayareystay waa taangiga lagu raaxaystaa la yiraahdaa magaciisa ruushka waxaa looga yaqaanaa taangigii raaxada baabuurna waa yahay taangina waa yahay wax karaya male inta uu istifaaci karo taangiga ka badan ayuu istifaacayaa marka ninkii gaarigii loo soo saaray tareenka hadda kadibna waxaa leeyahay cunug yaraa tahay ha isku aaminin nimanka reer galbeedka waa khatar cunugii marka gaarigii waa soo qaatay gaarigii markuu soo qaatay December Janaayo Febraayo maartay Maarso waa bishii afraad la maraa 4 bilood ku dhawaad ilaa 3 bilood iyo xogaa ayuu gaariga u yaalay ninkan ma isticmaali jirin dad badan marka waxay isdhihi jireen gaarigii hadiyada qaaliga ahayd uu soo siiyay Putin $1 milyan oo jooga gaariga uu soo siiyay ninka maba isticmaala man Putin oo ka shakisan reer galbeedka marka waxay leeyihiin waxa dhacay sheeko marka ku saabsan gaarigii maalintii Jimcaha ee la soo dhaafay ayuu ninkan soo kaxaystay gaarigii wuxuu la soo aaday saldhig banaanka magaalada ku yaala oo ciidamada cirka ay leeyihiin kaamirooyina laga soo duub ninkii oo gaarigii ruushka wata kii Mercedeski iska dhigay Jarmalka sameeyay qashinka lagu daray kii ruushka soo qaatay kadib marka waxa hadashay gabar marka isaga la dhalatay oo ku xigeen u ah ku xigeenkiisa waa gabar isaga walaashiisa gabadhii marka waxay tiri waxa la weydiiyay ka waranaa leeyahay waa isticmaalay walaalka gaarigii Putin waxay tiri tani waxay muujinaysaa saaxiibtinimada iyo kalsoonida aanu isku qabno annaga iyo ruushka hal cadow waa leenahay tiri waa macalinka weyn iyo xartiis marka jeega xeer waa ku feesteena baabuurkii Putin markaasa waxa qabsaday warbaahintii qaybaha bulshada baraha bulshada waxa leeyahay ninkii jeega xeer ahaa waa tuuray baabuurkii Jarmalka ahaa reer galbeedka wuxuudii Putin nacsiiyay Putin maskaxda ka qabsaday waa kaas haddaba barnaamijkeeni habeenimo qodobkaas ayaan ku soo gabagabeeyay inta aan mar kale barnaamijkan la mid ah ku kulmayno wixii aragti iyo fikra qabtaan qaybta fariimaha ama commentiska noogu reeba barnaamijkana like gareeya oo share gareeya meel kasto aad nagala socotaan haddaba haddaad nagu cusub tahayna subscribe-ka ka iloobin barnaamijka haddaad ku cusub tahay Facebook-gana follow gareey inta aan mar kale barnaamijkan la mid ah ku kulmayno akhyaaray meel kasto aad joogtaan waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo